dhegaystayaal ku soo dhawaada sheekadii taxanaha ahayd ee dawo jecel waa dooq qaybtii 14aad ee sheekadan waxa ay noo joogtay waata wiilkayga haddii aad sidaas jeclaatay waa ku fasaxayaa laakiinse waa inaa ogaataa gabadha waa inaa iska dhigtaa nin mas-uul ah wiilkayga xil ayaa ku saaran waa inaa taas la socotaa adigana hooy waaya waa la soconayaa sidii hore ma ahanaa ciyaalmaamada ahay hore dhinaca kale ninkii kaniif ahaa weli jacaylkiisa hodan kuma uusan booqan gurigeeda balse maanta waxa uu doorbiday inuu gurigeeda ugu tago kalana hadlo arrimaha jacaylkooda isagoo dhan kale baadigoobaya saaraa si uu xaaladeeda wax uga ogaado saaxiibadii maanta horta waa inaan gurigeeda kusoo booqdaa maadaama in badan qoftaas aan jeclaa runtii gurigeedana marna maana ugu tegin ayadoo in badan ayay imaanaysay mid kaloo ayaa ii dheerba saaxiibkii waa murugeysan yahay runtii waxaan lii sheegayay saaxiibadii saaraa inaa gurigeeda isku xanuunsan tahay muddoanshaday marka maanta waa inaan soo ogaada saaxiibkii cilna saarax u saara ma sheegayaba horta wix jira maanta waa inaan soo ogaadaa hadda guriga waaba joogaaba haatana ku soo dhawaada qaybtii 15aad ee sheekada dawo jecel waa dooq oo kaniif maanta waa soo dheeraatay soo dhawow haabay in badan ayaa haminaya inaa guriga kugu imaado laakiin maanta waa kula joogaa haa welcome ayaan ku leeyahay soo dhawow gurigaaga waaye okay walaal waa dhawaa laakiin maanta in badan ayaan taagnaa guriga albaabkiisii waa iska mashquula runtii maxaa ku mashquulsho dheeraada waxaan la yaabo guriga marka hore iridiisa markaan soo marayay qofbaa iga hor masawirmay qoftaan anoo salaami rabaa haddana wuxuu waa waayo kabacdi gudahaan usoo gudbo runtii mashquul tiro badan baa jiray xataa guriga loof u dhisanya camal macnaha adaa yirsaana lagu dhismaya mase anaa indhahay wax kale ii sheegayaan maya guriga wax ka duwan malahan ee adiga jacaylka indhaha kaa tuura ayaa umalaynayaa okay siduu yahay xataa aniga ra'yi waxa soo maray wallaahi haddii la dhisi karo guri loofa runtii adiga laftirkaaga saaxiibada anta la kaasitay guriga saaxiibada waa joogi lahayn loof camal ka dhista ka war horta taas ma dhisi karaa see kalota adiga taas waa ay fududahay inaan dhisano haddii qofka kale uu daacad u noqdo qof walbana qofka kale uu aamino wax walba waa dhisan karnaa guriga dhabtaan la isku dhisano waa qof walba qofka kale qalbigiisa inuu dego ayaan ku oran lahaa marka aniga qalbigaada inaan dego ayaa guriga igu filanba runtii maanta gurigaaga inaan kuu soo booqdo in badan ayaan rajeynaya laakiin maanta waa ilaa qadartiisa way dhacdo waa kuu imaan gurigaaga waxaan rabay saaxiibada saaraa maanta inaan arko maadaama in badan aan ka maqnaa indhaheeda aan arag ma joogto hadda ayadii waa ka xumahay saaraa way ay baxday xaggee aad abahayo saara iyo walaalkayga muqdisho ayay u guureen marka waxaa umalaynayaaba intaba inay ka tageen xagga ay degeen intaas waxaa umalaynaya runtii meeshaan tagna macnaha waa laga raranaa camal meeshaan ka tagna qudus la tagna arrinta waa haysateen barnaamijka ina wax ka weyda markaan i caddaatay maxaad ku hadlaysaa mar kale miya aniga dambiile iga dhigasa sidee aad iila hadlaysaa maxay tahay laakiin haddii la fiirso walla hadalkaas waa macnaha wax aqliga geli kara maaha runtii markaan tagnay barnaamijkii waa la habeeyey maalintaa nimana diyaaradda hoos laga raaca wallahi arrintaas macnaha aniga shakil ku saabad awal waxaan salaa wixii waa dhaceen laakiin maxaa ayada maxay la tagta hadda mayse maqal inaan joogno anagii run ahaantii sida aan kuuga sheegay saaxiibteeda aad ayay u xanuunsanaysaa walaalkiina wuxuu u fiirsan waaya walaash gabadhaas masaakiinta xanuunka haya saas darteed ayuu muqdisho u waday calasaan jire macnaha hayse awgeed ayaa la wada saasaan u fahmay dhib male koleytii oo ku kaftamay garaa la wada hadalkii dhib ha u qaadan koleyta xogaa waa ku daahya umaleynayaa mana in badan anaa jecna iska kajooga laakiin adigii xogaa inaa ku daali axsaas u egtahay camal maya sideed la hadlaysaa gacaliya adiga kuma dhibsanayo daqiiqadahan kula jooga sanado badan waa iiga qiimo badan tahay okay walaashay sidoo kale wey aniga hadda waa iska sii baxayaa xogaan waan iska mashquulsanaa khayr baan ku rajeynayaa koleyta mana kaa maqnaa doono insha allah mar dhow ana soo laabtana waa arki doono albaab gargaraayo laakiin aniga waxaan jeclaanaa maanta in aniga ila joogtid halla waa kala joogi lahaa laakiin macnaha wax yar haddaa adiga ifsaxdii ka waran meelaan kasoo laaba lahaye maadaama tiri ani la turki waa jeclaan rajo laakiin janis ma isiisi mar okay dhib ma laha waan ku fasaxayaa inkastoo aniga xasuustaada ay la joogto mar walbana aadan iga maqnayn waxaa tahay qof ku lamaansan nolosheeda okay sidoo kale in laftirkii inaan saan iga hareen umalaynayaa anaaba arki doona magaalo dhex maraya adoo ila socda camal niye ahaan anoo iska sheekaysan runtii dadku ina waasha qabaan laakiin ma waalan runtii jacaylkaasi ugu soo maxanaya dhib male walaashay waa fasaxan tahay khayr baan ku rajeynaya waa sii baxayaa maclo wanaagsan abu bay khayr ayaan ku rajeynayaa kaniif gurigii hodan ayuu ka soo baxay isagoo maskaxda iskala buuqsan oo waxa uu mar kale ka welwelay sida bixitaanka saaraa uu ugu sheegi lahaa saaxiibkiisa mukhtaar isaga oo ka cabsanaya inuu ka shakiyo isla markaana uu u qaato in arrinkan oo dhan asaga uu ka dambeeyo
mukhtaar iyo kaniif midba dhankiisa ayuu ku bilaabay inuu isla hadlo. kaniif inta uu usii socday saaxiibkiisa keligiisa ayaa rikoor iska shitay. mukhtaar qudhiisana laamigii ayuu rajiyeynayaa oo dadku nin waalan oo kale ayay kaga cararayaan. arrin aan fili waay ayaa la ii sheegay. runtii arrintaas waa arrin kulli murugi uga abuuraysa aniga laftarkii xataa maantii haddaan saaxiibkii la hortago saara ayaa tagtay runtii ay isaga murugi kusii noqonaysaa. saaxiibkeena wax isu leeyahay qofkan barnaamijka waxbuu ka wadaa waan kala aamin baxaynaa laakiin talow macnaha ma iska daayaaba ayoo dhama laakiin walaa saaxiibtinimada dhan wax kasta saaxiibtinimada ayaa ka fiican inaan u tago wixii jira oo sheega iga fiican. hadda iga qanci waayaan tasoo wadaan gurigii hodan keenaya suu indhiis wax ugu arko kaasoo meel jeclaa taaganba laakiin saaxiibkii maxaa ku dhacay meel cilaa iska taagan yahay. wallaahi arrintaas ayaa sii iska arrintii laakiin wallaahi arrintan waddada xilligan dhintay waa fahmi la'a. يا سارة 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 إن بدن بيقول صلى الله عليه وسلم أنيوه يا سارة صاحب dadka waxaa leeyahay haday arkaan wadadan laamiga aan saara ku qoriyay inay wax kala fahmaan wadada mirjeed leeyahay saara laakiin okaadi aan laamiga in badan ama taayir ku tirtira magaceeda inta qoran ku xasuusan rabo aniga maanta dhagax waa jeestay in noqdo qormi leeyahay waxa ku dhacaniyo maxaa ku dhacay maxay dhagaxa xilligan laamiga soo garaacaysa maxaa ku dhacay saaxiibkani walmeel helis saaxiib waa fiican ma sha Allah saaxiib haygu ma dhicin saaxiib caafimaad qaba wallahi saaxiibka arrin muruga la soo saaxiib maane xilligan inaad laamiga taagnaatid maxaa saaxiibku ku dhacay saaxiib maane maxaa la muruusita saaxiibkiyo arrintii sidaan ku sheemay ay qaadan aniga shalay kala tiray saaxiibkiyo muruga iska sarayaan ku yeeray runtii haddana waxay ka muuqata saaxiib inaad arrintii aniga aan ku soo jeeday iga diiday ما صاحبه يعني صاحبه كعمل دي كروان ما دام صاحبك باتاي ما كستو اي شيء نقاط ورا لكن صاحب انا قلبي وكسر لا صاحب يعني معناها انا هب waxaan barnaamijkan ku tagay markaya صاحب hadan waa caafimaad qaba صاحب isdijinay inta toorta صاحب waxa dhibaataan la badirsan صاحب laamigan hadda macnaha waa iska socod صاحبه والله صاحبكي waxaan ku sheegay ay qadanayso ka filay maadaama saaxiibkii tahay laakiin saaxiibkii maanta hadaan ku iraada ka waran aan qabta magaceeda laamiga qorisid aan dalka ma jigto oo dhafta amal صاحبه ان taas hadaan maqli lahaa saaxiibow waayo macnaha saameyn badan bay igu yeelan lahayd taas laakiin saaxiib qoftaan waxaan waayay iga dhoofto qalbiga ka dhoofto saaxiib aniga runtii haddii maanta meesha dalka ila joogtay haddii dibadda joogto bardu qalbiga haday ka maqan tahay soo ka mid saaxiibow maqa saaxiib adiga maxaa igu soo siiyay saaxiib maxaa macnaha hadalka maanta ku keentay saaxiib arrin saaxiibow sidaan wax ku sheegan dadka tawa garan lahay adigu waa murugaysan tahay hadda ku sheegana wax ka baqay in adiga murugo ku sii awarto runtii la turkiye maanta sida shaqeysa ay u dhacdo dhixina gacmaha taga way gaadhay arrin saaxiibow wallahi aniga hadda ana sidoo runta saaxiibkiyo ما صاحبك كني فوق واحد دبعته مال صاحب واحد صاحب دبعته مال صاحب هو قلبي أقول شيء إيش صاحب أول معناها إن الرجال أنت عن كل بدن بصاحب قلبي ومغل دقيق ومغل هي أدل قاعدين صاحب إيش صاحب ما أنت محاول داوره أوكي صاحبكي أنا دب وركين بقبل القاضي وأنا كل شيء إن رأنتي صاحب وقفتي سارة وأتن كل شيء حقابي حنوسنيت أنا قفتي والقاضي أن مقدش أيلو دقي وين حنوسنتهي صاحب ساس أيان ما أنت كويس كردي إن صاحب فضلنا مرة على صاحب كل برنامج كان محبي كوجين هاي فضلنا مرة على صاحب runtii saaxiibkiyo ani in badan ayaan isku dayay inaan ku qanciyo laakiin adiga inaad indhahay ka qancin maahan warkan ku sheega ku qancin saaxiibkiyo aniga hadaan ku iraado hodan way joogtaa saarana waa tagtay adiga war kale ba ku qalbiga soo galay laakiin saaxiibkiyo si hodan way joogtaa ayadeen gabadhiina waa la waday saaxiibkeeda ayaa raacay laakiin saaxiib xal loo wada saaxiib macnaha ujeedada loo wada barnaamijka loo wada sheeg saaxiib run ahaantii saaxiibkiyo aniga arrintan waan ku wareeray xagga markay joognay meeshaan barnaamijka laga habeeyey hadda markaan nimina runtii waa nala ka dhaafo dhaftaan bay hadda aniga iga daranta runtii muqdisho laakiin saaxiibkiyo dhib male way xanuunsan tahay qoftii xanuun awgeed ayaa loo waday laakiin saaxiibkiyo adiga daraadda inuu xanuunsan tahay dadna meesha kama marnaa ugu taa saaxiib maane insha allah dacalaf kuleedana way helaysaa saaxiib taa saaxiib aamina la saaxiib in daraadda ay xanuunsan tahay iyo in wax kala haystaan laakiin saaxiib aan wixii jir saaxiib wax kale waxaan qadar weeye wixii ii qoran gefi mahay saaxiib aniga runtii qoftaas haddaan calaf leeyahay mar labaad aan isku soo laabano ama jacayl aan nolol wadaagno saaxiib waa arkay saaxiib nolol loo yeeray ninkii sabra sigtiisa yar saaxiib aniga waa samray in badan saaxiib ana hadalkaagana saaxiibkii waa tahay kalsooni waa kugu qabaa hadalkaagana saaxiib mar raba inaan macnaha haweenida jabiyo oo aad samar tiri in badan aamus waa tiri saaxiib taasaan isku dayay saaxiibow okay saaxiibkii waa maasantahay waa kaan filaya taas inay dhahaysid dhib male saaxiimaane meeshaan qorax kuleylka laamiga xilligan ku taagay indhaha ku baxay saaxiimaane nasoo bixi saaxiimaane waa sii harsanayna ما صاحب أنا قرح واجد لكن صاحب أنا قاعد عايز صار رانتي هوسي مانتي ما أدري هي مانتي أنا هلكن تاجنا يديك دي رانتي واحد قرها يمنا ما نسألكن لكن صاحب إن كنت هذا كنت حكي لي يا صاحب ربيح وتجيناي mukhtaar markii loo sheegay in ay tagtay saaraan muqdishona loo qaaday waxa uu go'aansaday in uu dabagalo saaraan meel kastoo la geeyo
xamar biir saaxiibkay xamar xaal qaado saaxiib aniga maxaa ii talaa marka aniga meeshaan aan joogaa runtii kaalkacyo dad ehel badan ima joogin waxa kale aan ka maleysanay kaalkacyo dad ii joogay waa saaxiibkay iyo Saara saaxiibkayna aad iyo aad wax badan bay igu qabtay ninka saaxiibkay intaan ka badan wax garab aan sii weydiisan karo male Saarana saa maqlayo Muqdisho baa la waday Saara awal ba jacaylkeeda dhaafadan Muqdisho loo horay ninka hadaladiisa ka dheeranayna Saara darahadii inuu xanuunsantay runtii Saara in qiyaanayso umaleemayo aad iyo aad bay jecleed waxaan in lagu kalifay ayaan umaleynayaa oo jacaylkan lagu qasbay waayo markaan arkay farxad kama muuqan qof aroos soo ogolaaday farxad baa ka muuqan lahayd iyo jeesjees qof kale uu ku jeesteesayo laakiin Saara ayaa sidii maragtay xanuunsanayd hadalladii ninkan saaxiibkeena ina aamino danteeda ku jira marka aan waxaan sameeyaa Muqdisho hadii loo dhigay Saara in ka harimayo waa jacaylkayga meel kasta oo ay tagtaan aan ka daba tagayn doonaya hadda radin Muqdisho ay saaka loo qaaday Muqdisho lawadana ana wayna baxay Muqdisho aada meeshan wax ii yaalo malaba aan ka sii suganayo wayna Muqdisho tagaa anayada ilaa saan ku heli lahaa qof aan mar labaad aan iyo qorantahay aan arko waa arkaya marka didaal wayna sameeyaa saa ku heli lahaa qofta Saara mar labaad kula kulmi lahaa Muqdisho meel walba ay kaga jiraan wayna soo saaraa xitaa hadii dhacdo inaan ayada nolol la qaybsay waayo aan waayo ayada nolosheeda dhaafto inaan ayada aan arkaa mar walba aragtideeda aan iska weeshada aan xusuusteeda u weeshada kullu in magaalada ay la joogto saaxiib saas aan iska rajeynaya kullu in iyada ku noolaado saas baan rajeynaya kullu in mar walba aan si kasta ugu qaadatana wayna baxaa gaari baan iska raacay aniga oo la iska reeto walaad baa marka ilaahay dood masbuuciidan gaariyaasha baxayaan aan iska raacay Muqdisho aada maalintii dambe ee talaadada markii la gaaray 4tii subaxnimo ayuu Muqtaar soo istaagay busteejada basaska xamar laga raaco si uu bas kaga raadsado una baxo magaalada Muqdisho taas oo ku tabayo Saara oo ayada ma ahane indho iyo miir kale uu salahayn balse waxay dhibaato ka jirtaa dhanka jeebka ayuu ka xanuunsan yahay oo ma haysto wax lacag ah oo uu ku raaco gaariga Muqtaar busteejada laga raaco gaariyaasha xamar ayuu bas ka raacay darawalkii gaariga waxa uu ku mudeeyay marka uu tago magaalada Beledweyne inuu lacagtan siin doono alle maxaan gaariga Muqdisho intuu tagay ana baxaa gaarigan in si raacay gaarigan haduu iga tago gaari kale heli maayo walban lacag afkaana raayna af Soomaali ku raacay gaarigan ka gaariga waxa jecel oo bixi raan Muqdisho gaarigan raacay wadan ka gaaraya gaari waa iri kabsi oo baxaya hadda ina tagaa raba laakiin niyo laba qof iga dhimanay ciiso ma midkaas ma socdaan mali ciiso farxo ha saaxib booskan adiga qabso fariisaadi laakiin ruukay maxaa iga dhima halkan boos ma ka tagaa mise halkan boos ka tagi maayo oo walaal ana tagay ma baxay gaari xagu socdo gaarigu ha saaxib gaarigu Muqdisho u raraya laakiin adiga xagee rabtaa aan laftiga Muqdisho rabay in ay rabma gaarigan raaco ha soo saaxib booskan banaan booska kaliya baa iga dhima saaxib ها سوق يا سحلك بعد أقدر لعني وبعد كم ركوز كوريت ما ميل فعم كوريا صاحب هيا نبي كان العكس كبلي ولا العكس هذا موت محر أنا بلويان وصعدا بلويان العكس كاسين هم مركين بلويان ما هي العكس حق كاسين هذا العكس موته يا صاحب واحد قاري لقوا مرة عاد بلدوينة المقدشي واحد شيء يسيد قاري العكس بوبه يا صاحب أنا العقب وبهاي حتى أنا واحد عمل ما يستمر كبلوينا حتى حر أنا قاعد شو جارو مركين حاجة على العكس كاسين العكس موته ولا سيقط ما صاحب ما نقص وين ما حنا سوينا سياسة صد محن يلا ولا سيقادني معنا نرجع يعني دير مضنا سيقادني هي سوقل بلا سوقل هي والله لكن نيو لعقتاس يا نكمر بلوينا مركات سام مركا ويستاغ لعقت هوراغا سينسا هورا ما افكر لعقت هوراغا سينا حتى dadkii hore maana soo doonayay هي فريسو markii ay soo gaareen kontaroolka magaalada Beledweyne ayuu darawalkii su'aalay lacagtii ay saaxiib u jeedaa meeshan taagana waa kontaroolka Beledweyne magaalada hore u sii galeynaa magaalada markaan galno oo bartamaheeda magaalada aan taaganahay lacagteeda hore ay siinaysaa saaxiib lacagta hore aan ku siinahay waa diyaar walaal ايوه سoo gaarna saaxiib lacagtaysi walaal lacagta horta aniga ka Beledweyne ma ahi Muqdisho aan socday Muqdisho asal ahay markii xaga Muqdisho ka siinay walaal isii gaarsiin Muqdisho gaarsiin يا نعناع كلا قشميا برعد بابا هاد بقول وكاشكي صدق صاحب لعبتي والله ما شيء قلت ميلا قفك ما قانو حتى وان ميلا استاغ من ما هيستني ومخا سيقه Muqdisho igeenي Muqdisho lacagta ka siinay waraqoonta naga soo degniyo Beledweyne naga la balantay Muqdisho hadana soo adeer صدق Muqdisho gaarsiin walaal geedaa Muqdisho ka siinay xitaa hadaan rabaan shaqeeyo adeer shaqada aday ku taalaanay midii taalmaana soo deg adeer meesha waa joognaa lacagta adeer ka rabaa banaanka makeen walaal ma sacid ma iga tagaysan miyaa nin talahayn Muqdisho lacagta ka siinay si ka fasax walaal maanu xariifkan si loo dheelaana qaan banaanka saaxiib soo raac nakeen Muqdisho aadinaan soo bixi haye walaal ma aad ba iga fiixsanay Muqdisho ay geesid wax iga fiican ma walaal
anaa fahmay duleedkaan kusii garaacayna xariifkan waa bedelaynaa masoo bix adii haye haye darawalkii gaariga mar kale ayuu ka ogolaaday in uu qaado mukhtaar balse markii magaalada beledweyne kor looga baxay ayuu kalshibeygii gaariga ku amray inuu soo dejiyo mukhtaar waraag rishboy soo deji ninkaan soo deji meesha cabduulka somaana gaaray soo deji ninkaan soo deji saaxiib naga soo deji haab mudan aw kee waa kana soo dejina waa kee soo deji midka oo ciyaarsiyaha kor saara soo deji reehay shiiqa soo deg lagaan maxaa qabta walaal ninka darawalka ay soo saara baabuurka muqdisho geenaya yiri darawalka malqana soo degaaray noo soo banay wariya warna darawalka la hadlay muqdisho geenaya yiri maxaa garan musan aniga darawal malqana aniga gaariga soo degayso ninka darawalka ay geenaya kuma aqaan baadiye kuma aqaana adeer waa ka baxnay darawalnimo iyo waxaas ma jidhe gaarigaan lacag baa ku saarnayd lacagtii haddii lagaa waaye soo deg adeer soo deg jaasada lagu siinayaa soo deg saaxib soo taay taray muqdisho geenana ballantii ga baxay min ballan lahayn war ballan ma soo baxdo ballan tore u baxday aw beledweyne aw lacagta nagu siin lahayd adeer lafaagaan ka jaray inaa lacagtii soo deg waxay dilin masaakiinaan iyo lacag midna ma hay xagga in ka siinahay lacag haday dishan xag faysan iyo dilinaysa kay daayeen war masaakiinimada adeer xagga soo baxniyo hor naga soco garaac waraag garaac xagga bujiga ku saaran isoo qabaniyo lacag ma haystay dilin wartalkiisa ma qaana dilniyo dilin lacag ma haystay dilin soo sheeg wax nima raga ilaa ka dhigay dilin ka silcinaya iska dhaaf mid kale nooga raadi midkaan silcinaya naga wad meeshiisa aan ku xirnaaday naga wad midkaan mar haddaan xirxirnay naga gudbi midkaan naga wad adeer meeshaada fadhi meeshaada baaladun kugu cunayaan mukhtaar iska duleedka magaalada beledweyne intay xarig ku dhuujiyeen oo ay garaaceen ayay kaga tageen balse nin lagu magacaabo daahir oo saaka geel ka soo lubay ku raad jooga ayaa ka soo duldhacay mukhtaar oo qaylinaya geeli maanta aan raadsada halkaas kor aan u raadiyay duutiye raadka geelay u ekaa waa inaan ku dhaca markaan waxaan maanta maqlayo ma dhagaya masana umley qof miyaa mise wax kale waan fiiriya aan ku leexay markaan tilbeel war iga furo meesha cidlada maxay tahay qof dad ma jooga miya war xarig iga furo meesha cidlada maxay wallahi waa qof billahi tallahi bal aan fiiriyo soo dhaweysta wax kasta dhici kare horena qofka ama waali loo soo xiray ama idilaa mise ciiba meelaha ugu jira warninka walaalkaa iga furo warninka warkaala xarig iga furo walaal waraadha maxaa kugu dhacay meesha waxaa lagu keenaniyo maxaa ahayd niyo dhig waa kaa socda maciilma meesha kugu jira mise waa lagu dilay walaalku way dilay waa xirxiran horta xarig iga furo xarig iga furo ogaay bal kan waa cadin saash ahayn aan tooriyo soo dhaweysta ogaay waan kaa furay markee waa maasanta walaalkii waxaa kugu asxaan guda maaqa war maasanaakan hore orda halkaas ka bax nin dili ma tahay meel kasta jooga mukhtar waxaan soo maqan kuwa waxaan bii dilin kaakacya in runan iska joogo beri muqdisho dil baa iga raaco dan lacagaysan wax soo maqan markii uu xarigga ka furay daahir ayuu mukhtaar u soo noqday magaalada beledweyne si uu cunto uga raadsado maadaama baahi xun ay hayso tan iyo gaalkacyana wax biyo aan ahayn uusan laqin kadin magaalada beledweyne ay dhowdaha malena meel way dhigeen magaalada ku laabto gaajana way haysaa magaalada dadka cunto miyan ka helaya Soomaali ku cunaa maqaydan si dilan dadku haday arkaan ay kaga naxay wax sakaysinay dan magaalada aad maqaayad xaafadeed ayuu soo galay mukhtaar waxa uuna dalbaday qado maqaayad xaafadeed weyn dadka jooga dad fiican maqaayadan si garanayo gahay baahi inta dhiman la xayn dhirin mudana Soomaali iska cunay walaal maqaayad joogay walaal naftii cil wax hilib iyo bariis waxay keen haye walaal isoo didaal gaajo hayse haye cunto nooc carabti sheegaan lagu keenay walaal hilib iyo caano haye markii uu qadeeyay ayaa maymuun oo maqaayada lahayd waxa ay su'aashay lacagtii cuntada marka waa dhirgay waxaan sameeyay yaa marba dhirgay caloosha ku jiraan oo gaajina marka lacag kala baqal ka daan dhirgay waxaan sameeyay maqaayadan iyo hal naag joogto ma ka dhuntan iyo laakiin aan badka cuntada caloosha ka qabtaan naag masaakiin oo agtan naag asxaan ifashoy iyo isku dhiibay waxay rabay tiraade lacagna ma haysto oo sheegay mun duruufsan baa leh kolladii aragto iyada si kiidinsi qofna kama aqaano maqaayadana soo lacag ma hay maxay tahay warisi lacagta heede
aad ifratid maanta saakiin timihi soo dheerdheeraadana wuxuu cuno waaye ayaa loo yeelay oo waxaa loo dirtay in wax kastoo loo diro ah waxa ayna go'aansan intaan maanta ilaa iyo hadeertaan meelaha rafaadsan buu egyahay malaha ma aqaano xuseen qafaada iska tijaabin wax uma dirsan kartid baawri qaladaad lix maray maqsan meel walaal macnaha nin iska socda aniga ahaa waaga markii uu baryay ayaa sida uu arko in uu ballish war heede sid maxaa ka qabtaa adaan shaqo arigaas oo 33 loo qabanayay anaa igu ogtay duwan inta ay noo joogto